Assalaamu calaykum. Waxaa jirta su'aal ay dad badan soo weydiiyeen. Marar badan aan arkay iyadoo bulshada dhexdeeda dood ka dhex abuurtay. Su'aashaas waxay tahay maxay faa'iido ay leedahay waxbarashada formal education-ka ah haddii aanan shaqo ku helaynin oo aysan shaqo noo damaanad qaadi karin. Kadib waqtigaas dheer iyo qarashkaas nooga baxayna oo ugu dambeyn markii aan waxaas oo juhdi iyo qarash aan galno oo shahaadadii jaamacadda soo qaadano kadibna suuqyada shaqada aan imaano waxa ugu horeeya ee nala weydiinaya ay noqonayaan maxaad xirfado aad leedahay. Soo kama muhiimsana inaan intaas oo waqti iyo qarash intaan geli lahayn inaan xirfadaha ugu muhiimsan ee suuqa looga baahan yahay inta baranno aan suuqa shaqada hore u galno oo aan ka shaqaysano. Maadaama haddii aan wadadaas dheer ee 12 sano ilaa 16 sano ugu qaadanaysa ee waxbarashada formal education-ka aan soo marnaba isla halkan ku soo dhamaanayso oo ay noqonayso inaan xirfado inta gooni u barano haddana aan ku shaqaysano maadaama aysan shaqo abuur noo sameyn karin. Su'aashaas ayaan rabaa inaan si fiican dhalinyarada soo weydiiso iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga yaabo inay su'aashan oo kala qabaan inaan uga jawaabo muuqaalkeena maanta. Ka hor intaan ugu gelin muuqaalkeena, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada ku xiran kanaalkeena Abqaal Media. Haddii aad hore noola joogtayna, like saar muuqaalkeena, lana wadaag saaxiibadaada wixii faallo ama comments-ana hoos noogu reeb. Sidaan filayo inaad fahamsantihiin, formal education waxaa loola jeedaa waxbarashada nidaamiga ah sida iskuulka hoose ilaa heerarka kala duwan ee jaamacadda iyo inta u dhaxaysa. Haddii aan dib u milicsano halka ay ka soo bilaabatay waxbarashada nidaamiga ah ama formal education-ka, inta la hubo iskuul waxbarasho nidaami ah lagu barto waxa ugu horreeyay waddanka Masar oo 2061 sano ka hor taariikhda miilaadiga ah bilaabay in ardayda meel inta la iskugu keeno wax lagu wada baro. Waxay ku soo bilaabatay in ardayda la baro dhaqanka, diinta iyo falsafada oo markaas loo arkayay inay muhiim tahay in da'yarta soo koraysa la baro waxa ugu muhiimsan ee bulshadu markaas aaminsaneed. Kadib isbeddello waqti dheer qaatay, qarnigii afraad reer Yurub ayaa bilaabay inay dib u casriyeyn ku sameeyaan qaabka wax loo baro ilmaha iyo waxa la baro intaba. waxaana Roomaankii hore ku soo kordhiyeen in ilmaha aan la barin oo kaliya falsafada, dhaqanka iyo diinta la baro oo lagu kordhiyo waxbarashada akhriska, qoraalka iyo xisaabta si fahamka iyo aqoonta bulshada kor loogu qaado. Wixii intaas ka dambeeyay maalinba maalinta ka dambaysa isbeddello iyo dib u casriyeyn ayaa ku socotay nidaamka waxbarashada adduunka ilaa markii dambe laga soo gaaro xilligii kacaankii warshadaha 1760kii markaas oo totally isbeddelay nidaamka waxbarashada reer Yurub oo dareemay in baahi weyn loo qabo dad aqoon-yahano ah oo yaqaana cilmiga dhaqaalaha, maamulka iyo xisaabaadka. Waxay u baahdeen inay horumarin ku sameeyaan nidaamka waxbarashada si uu u noqdo mid la jaan qaadi kara isbeddelka cusub ee ay galeen iyo sidoo kale inuu noqdo mid dabooli kara baahiyahooda suuqyada ka jiray markaas. Waa markaas marka ay hindiseen inay waxbarashada iskuulka yeelato 3 level oo kala sareysa oo ka bilaabanaysa dugsi hoose, mid dhexe iyo mid sare iyo sidoo kale jaamacadda oo iyaduna sidaas la mid ay u sameeyeen 3 level oo kala sareysa oo ah digriga koobaad, digriga labaad iyo digriga saddexaad ama haddii si kale u dhahno bachelor, master iyo doctorate ama PhD degree. Adduunka intiisa kalena waa ku raacay markii dambe waana sida uu ilaahay hadda u dhisan yahay qaab dhismeedka nidaamka waxbarashada adduunka. Intaas waa taariikh kooban ama brief yar oo aan rabay inaan ku ogaataa nidaamka waxbarashada iyo heerarka kala duwanaa ee uu soo maray. Haddii aan soo laabto su'aasheeni, formal education waxaa loo diyaariyay in lagu jiheeyo mustaqbalka iyo garaadka ummadda ee looma diyaarin daily activity. Maxaan ka wadaa? Waxbarashada nidaamiga ah ardayga waxaa la baraa oo lagu training gareeyaa laga soo bilaabo dugsiga hoose ilaa iyo jaamacadda aqoon ka duwan daily life. lama baro siduu asagu naftiisa oo kaliya u horumarin lahaa ee waxaa la baraa siduu bulshadiisa horumarkeeda uga qayb qaadan lahaa ama uu u jahin lahaa. Tusaale ahaan, ardayga waxaa la baraa bulshada uu ku dhex nool yahay, identity-geeda, value-geeda, culture-keeda, afkeeda iyo deegaan juqraafiyeedkeeda iyo wixii la mid ah. Intaas marka la baro oo ah waxyaabaha aasaasiyaadka u ah bulsho kasta, waxaa la sii baraa siduu contribution ugu darsan lahaa geedi socodka horumarineed ee nolosha bulshadiisa. maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah ummadda garaadkeeda, dhaqaalaheeda, aqoonteeda, habsami fikirkeeda, nolosheeda iyo dowladnimadeeda in la horumariyo sidoo uga qayb qaadan lahaa ayaa la baraa ardayga. taa macnaheedu waxa weeyaan halka ardayga laga bari lahaa waxyaabaha asaga noloshiisa gaarka ah anfacaya, waxaa la baraa waxyaabaha nolosha guud anfacaya oo asagaba uu dabcan qayb ka yahay. aan ku siiyo tusaalooyin kooban oo aad si fiican ugu fahmi karto arrintan.
ardayga lama baro self development beddelkeeda waxaa la baraa social development. Personal economic growth beddelkeeda waxaa la baraa social economic growth. Personal health care beddelkeeda waxaa la baraa community health care. Personal strategy lama baraya waxaa la baraa social strategy. intaan tusaale ayaan usoo qaatay faculty kasta iyo department kasta waxaa ardayga lagu baraa siduu bulshada horumarkeeda uga qayb qaadan lahaa, iyada oo bulsho kasta ay diiradda saarayso meesha ay u nugushahay oo ay u baahan tahay in laga horumariyo. ma kula tahay mudane ama marwo haddii aan caafimaadka dadweynaha diiradda la saari lahayn ama la horumarin lahayn inay kuu suurageli lahayd inaad caafimaad heshaan ama caafimaad aad ku noolaataan adiga iyo reerkaaga dhaqaale kastoo aad haysataan? sidaas oo kale ma kuu suurageli lahayd haddii aan dhaqaalaha waddanka ama dhaqaalaha caalamka uusan stable ahayn in dhaqaalo aad ka samayn lahayd ganacsi aad samaysay ama dhaqaale kale aad si kale dhaqaale u samayn lahayd? dabcan waa maya. tiknoolajiyadan, dhaqaalahan iyo researchkan maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya waxaa rangaraynaya waa aqoon-yahano backgroundkooda uu yahay formal education uu ka yimid. waxaan rabaa inaan ku soo koobo qodobkan. formal educationka waxa uu diiradda saaraa horumarinta nolosha waqtiga dheer ee ma focus gareeyo short term life ama nolosha waqti gaaban isagu ma focus gareeyo ee wuxuu focus gareeyaa waqti dheer noloshu si uu sii jiri lahayd oo bulshadu ay horumar u samayn lahayd oo waxyaalaha bulshada ka dhaxeeya horumarin lagu samayn lahaa. waxaa iska cad haddii aan sidaas loo jihayn lahayn nidaamka waxbarashada adduunka oo aan da'yarta la bari lahayn waxyaabaha danta guuda inay ka mudan yihiin danta shakhsiga ah inuu adduunku aad dib uga dhici lahaa halka uu maanta joogo. taas macnaheedu maaha inuu xariir yahay nidaamka waxbarashada ee hadda jira ee dhaliilo badan ayuu leeyahay oo aan doonaya inaan mar kale ka hadlo hadduu alla idmo, balse door muhiima ayuu ilaahay hadda ka ciyaarayaa aqoonta iyo horumarka bulshada caalamka ee sii kordhaya nidaamka waxbarashada ee hadda jira. haddii aan ka jawaabo su-aasha dhalinyaradu soo weydiiyeen waxaan leeyahay inta aad dhalinyarada tahay waxa ugu muhiimsan ama ugu weyn ee aad naftaada tari karto waa inaad wax barato iskuul ilaa iyo jaamacad haddii aad kari karto dhaqaale ahaan ama ay faamilkaagu awoodaan. aniga oo ixtiraamaya dhalinyarada iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee ubadkooda u xoogsi iyo xamaali taga oo nolol maalmoodkooda ku soo dhacsada sidaas oo dhahaya kun jeer iga raali noqda, waxaan idinka idinku dan leeyahay ama aan idinku niyad jebinayo maahan. ixtiraam iyo qadarin weyn ayaan u hayaa waalidiinta Soomaaliyeed ee muruqmaalka ah sababtoo ah anigaba xamaali iyo xoogsatanimo ayay igu soo koriyeen waxna igu soo bareen hooyada iyo aabahay. ilaahay adduunka iyo aakhiraba ku karaameeyo. waxaan rabaa inaan dhalinyarada iraahdo adduunka maanta waad ku dhibtoon doontaa wax weyn noloshaada kama bedeli doonaan muruqmaal iyo xoogsatanimo hadiiba ay sii jiraan, maxaa yeelay waa shaqooyinka tiknoolajiyadda ee aydu ay qaadan doonto doorkii bini'aadamku uu ku lahaa qaar badan oo ka midna ay haddaba la wareegtay. soo saaxiib waxbarashadu waa kuu muhiim noloshaada iyo midda bulshadaadana waa u muhiim. ha fiirin inta yar ee aad shaqo la'aanta tahay oo aad shaqo raadiska ku jirto, fursad waad heli doontaa ee ka fikir haddii aadan waxba baran fursad kasta oo aad hesho kama faa'iideysan kartid bulshadana ugama faa'iideyn kartid. haddiise ay doodaadu tahay anigu waxaan rabaa markaan jaamacadda soo dhammeeyay inaan horay shaqo ka galo oo aan suuqa shaqada hore ka galo, waxaan kugula talinayaa inaad xirfadaha ama skilliska suuqa looga baahan yahay aad sii barato intaad jaamacadda ama iskuulkaba aad dhiganayso oo aadan sugin inta aad dhammaynayso. maxay kaa saacidaysaa arrintaas? waxay kaa saacidaysaa inaadan waqti lumin oo aad suuqa horay u gasho markii aad waxbarashada soo dhammaysataba, halkii markaa waxbarashada inta soo dhammaysato kadib aad haddana bilaabi lahayd inaad xirfadaha suuqa uga shaqaysata aad barato. inta aad waxbarashada ku jirtaba xirfadahana sii baro si uusan waqtiba kaaga lumin. waa talo aan jeclaa lahaa in layla wadaago markii aan waxbarashada ku jiray, balse nasiib darro aanan helin cid ila wadaagto. muuqaalkan intaan ayuu ku egyahay. tani intaan muuqaalkan muuqaal lamid aan u kulmi doono. nabadgelyo.